Assalaamu calaykum. Sidee baa uga dhaadhicin kartaa waxa adiga aad doonayso qof kaleeta? Qancintu waa xirfad lagama maarmaan u ah macaamilaadka maalinlaha ah, waxayna inta badan soo gashaa waxqabadyada kala duwan ee bulshada. Haddaba sida aynu ognahay, xirfadani ma ahan mid dadka oo dhan ay wada leeyihiin. Waxaa jira dad awood u leh inay ka dhaadhiciyaan waxa iyaga ay rabaan qof kaleeta, waliba si fudud si ay ugu dhaadhiciyaan fikirkooda, halka ay dad badan aysan awoodin xitaa inay isku day sameeyaan, laakiin taasi beddelkeeda ay u wakiishaan qof kaleeto si fikradooda loogu gado qof kale. Haddaba qoraagan Johan Berger waxa uu leeyahay buuggiisa The Catalyst, waxaa jira 5 caqabadood oo ku jirta qof kasta maskaxdiisa, kuwaas oo u diida inuu ku qanco fikirkaaga. Haddaba haddii aad fahantid caqabadahaas, waxaad awood u yeelan doontaa inaad kobciso xirfadaada dadka dhaadhicinta fikirka ah, waxaadna gacanta ku dhigaysaa xog culus oo aad u isticmaali kartid qof kastoo aad doonayso inaad ka dhaadhiciso fikirkaaga, howlahaada iyo wixii la mid ahba. Aynu u gudagalno caqabadahaasi waxa ay yihiinba. Caqabada koowaad waa iska caabinta. Waxaa jira dareen iska caabineed uu leeyahay qof kasta maskaxdiisa, kaasoo saldhiggiisu yahay maskaxda qofka bini'aadamka ah. Qof kasta waxaa jira qof uu jecel yahay inuu noqdo mid kaga dayanaya dhammaan go'aanada noloshiisa uu isaga gaarayo, isagoo aanan dareemayn in la qasbayo. Dadka badi waxay aaminsan yihiin inaanay qofba uusan u yaryeeyi karin waxa iyaga ay samaynayaan iyo weliba goorta ay samaynayaan. Markastoo aad ku qasabtid waxa adiga aad rabtid, asagana waxa uu samaynayaa wax lid ku ah waxa adiga ku qasbaysid, isagoo ula jeeda si uusan u weyn go'aan qaadashadiisa, taasoo uu u arko inaad ka qaaday xorriyadiisa. Sanadkii 2008, shirkadda Tide oo ku caanbaxday oomada dharka lagu dhaqo ayaa waxay soo saartay oomo cusub, taasoo u samaysay sidii ninaca oo kale, si ay isla markii dharka lagu rido ay u noqoto mid degdeg ah oo la falgasho. Oomadii cusbayd ayaa waxay abuurtay jaaladi cusub oo ay ku loolamaan dadka, iyagoo ku sheegaya inay u samaysan tahay sida ninac oo kale, mid kastana uu ku sameeyo jaaladi si uu u cuno. Waxayna dhacday in dhalinyaro badan ku waxyeeloobaan oo isbitaal loo dhigo. Shirkaddii soo saartay oomadii waxay samaysay wacyigelin badan, iyadoo ku sheegaysa inaanan looga talagalin in la cuno. Xitaa waxay u kaashadeen arrinkaas dadka caanka ah bulshada dhexdeedana saamaynta ku leh, si ay u wacyigeliyaan dhibaatada ay leedahay cunista oomadaasi. Arrinka la yaabka leh ayaa ah inayba sii korortayba dadkii jaalanjiga ku samaynayay oo wacyigelintii dheg looma dhigin, waxyeelayntii dadka ka soo gaaraysayna way sii siyaaday. Haddaba waa maxay sababta ay u joojin waayeen dadkii ku samaynayay jaalanjigii oomada sunta ahayd kadib markii looga digay? Haddaba Johan Berger waxa uu leeyahay waa caqabad iska caabineed uu leeyahay qof kasta maskaxdiisa. Qofka waxa uu dareemayaa inaad ka qaadaysid xorriyadiisa, waliba aad ku qasbaysid doonistaada, oo si kama dambaysa ayuu diidayaa xitaa hadday tahay mid uu halis ku galayo. Waxaana sababa caqabad iska caabineed uu leeyahay qof kasta maskaxdiisa. Johan Berger waxa uu sheegayaa 3 qaab oo loo yareyn karo caqabadahaas oo loo yaqaan iska caabinta. Number 1, si loo xalliyo caqabadaas si qofka dhowr doorasho ah si uu dareemo inuusan qasab jirin ama loo meermeerinayo. Number 2, degan ula hadal oon qasab jirin, laakiin hadduu ka dareemo inaad qasbayso, waxaa suuragal ah inuu gaashaan ku daruuro. Ku dadaal marka inaad qofka uga dhigto hadalkaaga mid codsi ah. Caqabada 3, diiradda saar mushkiladda intaad saari lahayd halka. Tusaale ahaan, canugaaga ayaad rabtaa inuu nalka damiyo, waxaana dhihi kartaa aabo, soo ma ogid leerka inuu keenayo lacag badan haddii uu sidaan u shidnaado? Aanan awoodi karin wixii aad iga dalbatay hadday korontada lacag badan keento, lacagtii meeshaas igaga baxayso. Intaasi kadib waxa uu qaadanayaa fikradaadii, waana sida aad doonaysay. Caqabada 4, Johan Berger waxa uu ku sheegayaa kala fogaanshaha aragtida. Tusaale ahaan, ciyaaraha. Adi waxaa taageero tahay Liverpool, saaxiibkan wuxuu taageeraa Man City. Marka sida ugu dhaadhicin lahayd inuu ka soo tago inuu kula taageero Liverpool, laakiin hal mar kuma qancin kartid inuu ka soo tago naadiga uu isagu taageeradu u yahay. Haddaba Johan Berger waxa inoo sheegayaa 3 tallaabo inaad u martid si aad u bedeshid fikradiisa. Number 1, waxaad uga sheekeynaysaa inuu jiro ciyaaryahan uu taageero u yahay inuu soo wareegtay koox fulaan ee ila soo daawo ciyaartan. Adii waxaad doonaysaa inaad bedeshid fikradda uu ka aaminsan yahay kooxdaas.
si tartiib tartiib ah weliba. Lambar 2 waa inuu noqdaa dalabkaada mid codsi ah si uu u tixgeliyo dalabkaada adigoo u maraya si saaxiibtinimo ah. Ugu dambeyn waxaad ka soo gudubtay kala fogaanshihii fikradeed ee idinka dhaxeeyay labadiina. Lambar 3 waxaa sabal ahaan u adeegsataa ciyaaryahanku u taageero oo u soo wareegtay naadigaaga adigoo u maraya taageerada u qabo ciyaaryahankaas. Tusaale ahaan ganacsatada markay badeeco keenaan ama macaamiilkooda wax ka iibsanayo waxay sambal ahaan u tusaan sambal ay ka diyaariyeen waxa iyaga ay iibinayaan si ugu doorto nooca isaga uu xiisaynayo. Kadib ayay u geeyaan dharkii ama sheegii uu ka doortay sambalka. Si fudud ayay u qanciyaan macaamilkoodii ayagoonan alaabtii uu ka fatashi lahaa uga badbaadsanayaan. Sidaas darteed Johan Berger wuxuu leeyahay qofka doonaysid inaad bedeshid hab fikirkiisa si xuriyad